waa tahay marka hore magacaada oo saddexan aniga waxaa leeyahay cabdi maxamed maxamuud cabdi fari aan ku magac dheeray abandheer aan ku dhashay finno aan ku dhashay dagaalkii labaad adduunyada aan ka qayb galay oo Japan raggii ka soo noqdaan ah ilaahay nabad igu soo celiyay marka dagaalka labaad ee dunida dagaalkii labaad adduunyada aan ka qayb galay aniga Hiroshima Nagasaki aan ka dagaal galay aniga gacantay midig farahayga ay ku baaba'een meesha anoo qori hayst sababtaas ayaa liigu bixiyay cabdi fari waa tahay waxaa tahay oday da' oo wax badan u soo joogay oo reer Mandera ah Mandera taariikhdeeda kooban dad wax nooga sheegto hortu maxaa Mandera loogu bixiyay Mandera waxaa loogu bixiyay meesha uu hadda xafiiska weyn ka yahay DC-ga joogo stationka hal ku dhashay iridan markii laga galay halkaas ku dhashay uu yiri faraskii uu saaran yahay gaalkii ayiri waa maxay waxaan ay weyniga bad meesha hashiin ay meesha fadhido markaas ay Mandera leeyahay waa marka DC-ga magaalada Mandera oo waqtigaas jiray joogay Mr. Kilindi ala dhigi Soomaalida maxay u taqaan faras cadde faras cad wadan jiray waa tahay ninkaas magacaas u bixiyay magaca Mandera ee maanta magaalada Mandera ay ku socotana wuxuu ka yimid Mandera neef geel ah waa tahay marka dadka inta badan arintaas dooda ka qabo maxaad uga jahil la yanfacu waay been waay waxa kale la wado inta bidax iyo midig la wadaba ka soo tag halkaas waay ninkii hadal ka qabo aniga hay imaado adiga goob joog ahayd marka waxaad kamid ahayd ciidamadii aan ahay ciidamadii Ingiriiska yaad kamid ahayd waa tahay Mandera kormeel aasaasay da'ahan meeqa jirta 1950 69 sano Mandera ay dhisanta waa tahay da'ahan adiga meeqa jirta aniga 90 baa jirta waqti badan oo soo joogta hadda nin 90 jira lagu malaynayo jirkaada waa dhisan yahay errada iyo si kala markii loo fiiriyo moogi sida kale 90 jir sariirtu ku aruuray marka adiga maxaad kaga duwanta waxaan kaga duwanahay militarigan ahay aniga exercise aan ciyaari jirnay dagaalkii labaad adduunyada aan ka qayb galay aniga Hiroshima Nagasaki aan ka dagaal galay aniga oo waxa la qaaday Burma ilaahay dagaalka adduunyada iga soo bixiyay wadankayga aan ku soo noqday hooyo Mandera ali keenay waa tahay ciidamada Ingiriiska kamid ahay Ingiriiskan kamid ahay aniga dalka laga qaaday xagee lagu geeyay markii ugu horeysay mooyaane ka bilowna dagaalka waa tahay Talyaani ka kicinay dhulka waa tahay Talyaani intaan dagaalka laga kicinin dagaalka uga kicinin maxaa keenay Talyaani Ingiriis is dagaalaan oo Ingiriis uu dhulkan ka kiciyo Talyaani waxaa keenay xilislaas ay dhulkan oo dhan aniga boqor u ah Ingiriis la siiyay dhulkan ugu la qaybiyay ahmaara qaybisay xilislaas qaybiyay maanta waa gacan galay Talyaani baa iga adkaaday niyahu ikaalme sidii looga kiciyay xilislaas baa codsaday macnaha in Ingiriiska uu u kaalmeeyo ragii la geeyaan ay marka dagaalka bilaabay marka sidoo dagaalka ku bilowday deegaanadii aad qabateen halka aad gaarsiiseen dagaalka xagee Talyaani waxaan gaarsiinay markaan Ethiopia oo dhan ka kicinay oo Soomaaliya aan soo balnay jigjiga aan ka bilownaa haddana waxaan barnay jidkii Hargeysaan marnay waa nagala soo qaaday waxaan imaanay wardheeraan imaanay wardheer waan ka soo kacnay waxaan imaanay Beledweyne oo jidka hoosaan soo marnay wardheer Shiraabo soo maray Beledweyne aan imaanay Talyaaniga halkii ka kicinay haddana Jowhar tani xamar aan ka kacnay meeshan badda maxay dhahaan magaceedii ay lagu dabaasho liida midigteeda hoose markabka ku dugay anaa madfac ku dhiftay adiga halaysa madfac ku dhiftay aniga ku dhiftay madfac markabka meesha ku shiiday Talyaani oo carari rabo markabka waa tahay ku shiiday waxaan degnay marka auto group meesha dhahaan magac kale Soomaaliya ay u bixisay xalane u bixisay Soomaali xalane laakiin waxa loo aqoon jiray auto group xirada hadda xalane oo Muqdisho saan u joognaa leeyahay war ma qabtiin maya Japan waa soo galay Ingiriisow meel aadi ay ku jirtaa markaas diyaaradna la saaray annaka noolama sheegin meel aan u soconana Bombay nagala dajiyay Hindiya waa ka kacnay Rangu aan ka bilownay dagaalka marka Japan Hiroshima Nagasaki lingi waa tahay ciidan ahaan meeqa askari baa lahayd أعوذ بالله وحنا هاي 300 أوكن الصومالي هي مدو اسكجيو هي عدنان دا أديك دتك كل دا وقت جالس إنجليز كلاسو الشقية يا من دير عن نول ما أنت قرني ما أنت أحمد كشواد أنت تو أحمد كشاي واد أنت أصلا حكم الإنجليز هاديات إنجليز وفرق جيسين تبلي ده جيسي جلس يوكجري كرمه إذا ما قشي أحمد كشاب بالله مركو شغل كان كسب إحنا ميليتريا وبالله أسرع هي أوليك لوك تجو أنا عبد الله ديجي ويلكيسا وهذا بجوجو ويلكيسا جدوده ولي ويلكيسا معلنا جدوده ومرنا تشيف نقضي دقودي أبيس واد أنت أسرع دقالكم نقول جري أحمد كشاي واد أنت أسرع دقالكم نقول جري كولا الكيسو إيدين لكشالية ودقالك نقول جري إنجليزك واد
وادنت لكن دجالك كومي دمانين بس لو دنتين بس على ودنتين من دير كل دنتين مركز شغل كسب بحين مرتاحان واحد شغل كان يقول لي ميليتري كان كل شيء عبد الله جورا كود هذا نيروبي كل دنتين دقاسة قليل شري لبلا سام ميليتري نقول لي جت marka dadkii reer Mandheera ahaa oo la yaqaanay oo dagaalkii ciidamada Ingiriiska kamid ahaa raggaas sheegto hadda dhintay ahay waxay dhaleen ba ka nool waxay lahaa ilmihii ba ka nool yani xaaja cali sigaar jaban adeerkiis waa ogow iyo carab saciid baatil leeyahay iyo basabareeya ajo bas saasay ahaan jirtay Mandheera ramintaas intaas ahayd reesid gadaal dambe ay ka imaadeen iska dhaaf waxaan kale oo ka dambe baa iska soo dageen waxa laga yimid Soomaaliya laga yimid waxa laga yimid Ethiopia waxa laga yimid tan iyo wajeer iyo xaq mooyaale waxa laga soo guuray sidii baa lagu soo degay meesha waa la iskugu yimid Mandheera laakiin dadkii u soo horeeyay waa dadkaas dadkii